القضاء والقدر وحي إلهي كو حكمين كرا لنغو وحي إلهي كو قدرين كو قنع labadaasi haday qalbigeena ay timaado waxa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saameyn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira quraanka si fiican u dhageyso wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wath-thamarat maxa ku xiga wa bashir as-sabirin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxul faraj waa sabir weeyaan adoonku mukhayyar maahina waa musayyar adoonku wax ma dooran kara isagu wixii ilaahay ku qadar adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nabigeenu alayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'iktu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'ikta ku yiraahdaa adoonkaygi ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen ha bay yiraahdaan adoonkaygi midhii qalbigiisa ma soo qabateen ha waan soo qabanay markaasuu ilaahay yiraahdaa famaada qaala abdi adoonkaygi markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yiri bali sheega markaasay yiraahdaan hamidaka wastarja'a hamida ma macna alhamdulillah ala kulli hal buu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un buu yiri markaasuu ilaahay yiraahdaa maadaama adoonkaygi markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen uu aniga ii mahadnaqay oo isaguna xaqayga u soo noqday ibnu li'abdi baytan fil janna aqal jannada uga dhisa aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa mu'minku barwaaqadana uu ka macaasha masiiba haday ku dhacdana uu ka macaasha waa qofka mu'minka laakiin